magaalada Dacia ee istaraatiijiga Ethiopia oo ay qabsadeen xoogga falaagada TPLF ciidamada Tigreeg ayaa sheegay in ay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ee Dacia ee gobolka Amxaarada xuduudka la leh sida uu sheegay afayeen u hadlay falaagada iyo dadka deegaanka afayeen u hadlay dowladda Ethiopia ayaa beeniyay in dagaalyahanada Tigreeg ay qabsadeen Dacia isagoo sheegay in magaalada ay weli gacanta ku hayso dowladda Ethiopia dadka deegaanka ayaa wakaalada wararka FB u sheegay in ciidamada dowladda ay dib u gurteen sabtidii kadib dagaal xoogan iyo koronto la'aan ka dhacday qaybo ka mid ah magaalada Dacia abaarihii labadii subaxnimo ee Jimciya askarta Ethiopia waxay bilaabeen inay dib u gurtaan aagii dagaalka uu ka socday mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in falaagada Tigreega ay galeen magaalada iyadoo ciidamada dowladda ee qaranka Ethiopia aan lagu arag meel kasta oo magaalada ah Tajir Reda oo afayeenka jabhadda Tigreega ayaa wakaalada wararka Reuters u sheegay oo telefoonka dayax-gacmeedka isagoo ku sugan meel aan la shaacin in dagaalyahanada Tigreegu ay ciidamada dowladda ka soo riixeen Dacia ayna ku wajahayeen magaalada Kobolja wuxuu intaa ku daray in dagaalyahanadu ay gacanta ku dhigeen askar badan oo Ethiopian ah xogta kooxda TPLF ayaa si madax bannaan loo xaqiijin karin waxayna qadadka telefoonada ee Dacia u muuqdeen mid hawada ka baxay galabnimadii Sabtida inta badan waqooyiga Ethiopia waxaa hawada ka maqan isgaarsiinta waxaana la xadiday gelitaanka suxufiyiinta taasoo ka dhigaysa sheegashada goobaha dagaalka inay adag tahay in la xaqiijiyo Lagesa Thulu oo ah afayeenka dowladda ayaa fariin qoraal ah uu soo diray ku sheegay in magaaladu ay weli gacanta ku hayso dowladda Ethiopia isagoo oo intaa ku daray sheegashada ciidamada Tigreega inay tahay dacaayad been abuur ah qabsashada Dacia waxay faa'iido weyn u tahay waliba istaraatiiji ah u noqon doonta dagaalyahanada Tigreega ee ka soo horjeeda ciidamada dowladda dhexe ee isku dayaya inay ka saaraan gobolka Amxaarada 10,000 oo qoomiyadda Amxaarada ah ayaa sidoo kale magangelyo ka raadsaday halkaas maadaama laga yaabo in halkaas ay ka qarxaan dagaalo culus magaalada Dacia ee weyn ayaa 385 kiiloomitir u jirta caasimadda Addis Ababa waana koonfurta ugu fog ee Amxaarada ay kooxda TPLF soo gaadhay tan iyo markii gobolka soo galeen bishii July Samuel Gatajua oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Soda ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in qabsashada magaalada Dacia ay faa'iido weyn u tahay ciidamada kacdoonka wada ee gobolka Amxaarada Dacia waa magaalo muhiim ah dadkuna runtii waa la godoomiyay kaliya waxay sugayaan waxa dhici doona Mareykanka ayaa ugu baaqay falaagada Tigreega inay isaga baxaan gobolada Amxaarada iyo Canfarta iyadoo bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka lagu baaqay in kooxda TPLF inay joojiso dhaqdhaqaaqyada ay ka wado magaalooyinka Dacia iyo Kobolja waxaan ku boorinaynaa kooxda TPLF inaysan madaafiic u adeegsan magaalooyinka waxaan dib u xasuusanaynaa diidmadayada adag ee ka qabno duqeymaha cirka sida ciidamada Ethiopia ee makala duqeynayay inaan u diidnay iyo deegaano kale oo Tigreega ah oo galaaftay nolosha dad aan la soo koobi karin ayuu yiri afayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ma jiro wax xal ciidan ah oo lagu xalinayo colaadan dhammaan dhinacyadu waa inay bilaabaan wada xaajood xabad joojin ah iyadoon wax shuruud ah lagu xirin gobolka Tigreega ayaa dhanka kale wajahaya duqeymo dhanka hawada ah oo maalinle ah tan iyo toddobaadkii hore markaas oo ay ciidamada kordhiyeen adeegsiga hawada sare ee dagaalka sida uu sheegay sargaal ka tirsan cisbitaalka 10 qof ayaa ku dhintay duqeyn cirka ah Khamiistii halka qaramada midoobay ay sheegtay in laba weerar oo ka dhacay caasimadda Tigray ee Makala 18kii bishii Oktoobar ay ku dhinteen 3 caruur khilaafkan ayaa qarxay bishii November ee la soo dhaafay kadib markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ciidamo u diray si ay xukunka uga turaan kooxda TPLF abaalmarintii caalamiga ahayd ee la guddoonsiiyay Abiy Ahmed ee shahaadada lagu magacaabo Nobel Peace Prize sanadkii 2019 ayaa sheegtay in talaabadan ay jawaab u tahay weerarka kooxda TPLF ay ku qaaday xeryaha ciidanka wuxuuna ballan ku qaaday Abiy Ahmed inuu guul degdeg ah ka keeni doono haddaba waxaa jira wadamo badan oo caawinaya TPLF annaga oo ku sheekaysanayna komatiga xaaladda Ethiopia maxaa ku saadaalin lahayd maxay noqon doontaa haddii TPLF ay haysato taageero aad u culus Abiy Ahmedna ay xaaladdu ku adag tahay daawade haddii aad ku cusub tahay meeshan isku day inaad subscribe to noo saartid si dadyow fara badan ay ugu soo xirmaan page-ka aan ku leenahay Facebook iyo sidoo kale YouTube-ka ee Cabdullaahi Colombo ku soo dhawaada daawadayaal markasta